السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغاي وانا عيمة هلك نغدا ونسان نوا جنال كينا نغدا والو فاميلي معلم عصب موقال عصب ومعلم سبتي تاريخ دو والباتني لابو بشا لابي لباتنكا بشا الشنات لابد كون لباتني كوغ الحمد لله رب العالمين شكري لابد مالنا لما أركي واجوكني وناكسنا وفي عنا mararka qaarkeed waxa way hawsha marba dhinac islaanayso dhinacii cuslaato ama kalandarka uu u bato dhinacaas anaga uga dab islaana marka alxamdulillah sideen kala mashquul ma ahayn sharax soo gelinay muuqaal goos oo muuqaaladii hore aan u duubnay anagoo dadaaweynaa xadhaanay maadaama aan la dawaa family aadan hadda muuqaal u duuboyn waa inaad maxuu ahaayeen waxay ku sii sugaan oy daawadaan lewana la sugooya ogsoona anaga u gilisiin marka laba janaal ayaan ka keenay oo dhaqaaq aad raxashide xilligii winterka uu soo socday banaanka aan nadiifinaynay iyo waa loo qori tuuro waxa la yiri saddexdee loo giliyaa nala dawaalo family saddexdee video ee loo giliyaa dhagdhagda ciyaarka ayaa soo kala qabtay saddexdooda Marimo iyo Maymuun iyo Munawara waxay dhaheen saddexdaan loo giliyo sidii marka saddexdaas aan soo gelinay laba waxa laga keenay janaalka Maymuun iyo Munawara oo insha Allah mar dhow markii la soo fasaxo iskuulka summer fasaxa ay soo galaan aan soo celin doono ama ay soo celin doonaan ilaa ayaga iskale janaalkaas insha Allah iyo janaalka dhaqaaq aad dhaxashido halka soo qaadanay iyo labana xagan ka keenay diidan ogeen oo halkan bas aad joogtay xagana waan jirnaayo ogo insha Allah subscribe like share comment dhamaan malgu sheega baad garanaysaa codkayga xogaas xirnaasha ku ogeedeen oo allergic subhanallah biinyada markay soo bixayso biinyo waxa la yiraahaa dhirta afka hore waxa ay ku wataan oo ubaxa mar alla markay roobkaas oo barafka oo dhamaado roobka yimaado boorkii oo barafka ilangeediyo dul saarnay boorkiisa soo kacay rooba imaanay oo dhaqay inta soo roobka imaanin iyo inta muxuu ahaay boorkaas oo socdo allergic aad u xoogana kiciis indisyo waxa kale muxuu ahaay roobka markuu imaado kadib geediya muxuu ahaay bac soo dhahayo ubaxyadii soo saaray taasna allergic kale inta hadane waxaas allergicadaas iyo hindiskaas iyo waxaasaan muxuu ahaay aan ku qabaa xiliyadaas saas uma sii darno alxamdulillah laakiin waa sanad walba markuu geedahan soo baxayeen hindis alxamdulillah waa nadaafad muxuu ahaay oo sababada iyo kii asiga haya muxuu ahaay aad hindis ziyaade saako dhan hadana barnaamijkaas markii la soo hagaajiyo ugu sii jirto laakiin waa wax aan garanayo jirkay u yaqaano daawada allergicadan iska laqa kooleegan waa dhameystaa oo muxuu ahaay dib iguma haay alxamdulillah sidana kale caayado idil waa wada noo qabnaa waa fiicanahay waa maalin sabti sida nagu ogeedeen normal sabtigeen waxaan rabaa inaan uga jawaabo su'aalo badan oo markii la isku soo aruuriyo hal mid iskugu imaado waxa waaye barnaamijkan maanta aan ka hadli doono insha Allah la'alla Allah inuu views badan helo inuu share gareen badan helo inuu like badan helo inuu muxuu ahaay umada uu gaaro ilaahay aan ka rajeynaa maxaa yeelay waa wax dhagahayga aad ugu soo noqnoqday wili maalmihii hadda u dambeeyay naciimo saana ay haysato wixii markaa isku aruuri hal su'aal isku noqonayeen saddex su'aalan ka jawaabi doonaa maanta insha Allah laakiin mid walba muuqaal gaar ahaan inuu noqon doono umaleena maxaa yeelay inuu dheeraada laga yaaba midaan ugu horeysay aan ka jawaabi doono xitaa naciimo abaayo dad badan ay ka imaatay hal isku keenay hal qof aan ka soo qaatitiisa naciimo abaayo yani dhibaato aad u weyn ayaa ay haysato oo ilmahayga iyo aabahood isma fahmaayeen hal qof ma ilmahayga iyo aabahood isma fahmaayeen ilmahayga iyo aabahood isma fahmaayeen gabadheydii aabaheed isma fahmaayeen wiilasheydii aabahood isma fahmaayeen aabaha ilmaha ma fahmaayo waa aragtiyo kala duwan hooyooyinka badan iga imaad okay intaana gudagelin barnaamijka muxuu ahaay maxaa u roon maxaa looga bixi karaa maxaa looga gudbi karaa kooga hore muhiimad ugu weyn waxay tahay
waxaan dhibaatadan maxay tahay what is the problemka marka awoodid tusaale ahaan qofka markuu xanuunsan yahay isbitaalka yimaado wuxuu dhahaa maxaa kugu dhacaa la dhahaa isla markuu soo gal ilaa lama daaweynayo maxaa kugu dhacay caloosha laga haya haduu yiraahdo kale tusaale ahaan waxaa la warsanaa marka hore xanuunka ku haya muxuu yahay calooshii dhah calooshaas markii la ogaado kadib jirka kala dhan amaana la siinaa calooshiya la aadamo anaga hadda marka waa maxay yani dhibaatada waa maxay dhibka ama problemka ka taagan in ilmihii iyo aabihii ay isfahmaynin hooyo kuma jirto maanta meeshaan laakiin qayb weyn ka qaadanaysaa inay isfahmin ilmaha iyo aabahood okay ilmihii way soo roonaadeen 13 jir waaye 15 jir waaye Naciimo si kasta daa u dadaalnay aabihii ilmihii isma fahmaayeen sababta iska fahmi lahayn aabaha iyo ilmaha maxay yihiin waa li warsana waa li la wadaagoya muxuu ahay aad nooga soo jawaabaysaa talooyin qaas ahaaneed commentiyadina way yaraadeen oo waxay ku yaraadeen su'aalaha badankood WhatsApp-ka ku imaanayeen oo qof walba markii aan dhahay gaar ahaaneed waad ii soo warsan kartaa commentiyada xagga ka yaraadeen ani waxba ma arkin in xag ka yaraadeen haddana walaalo kale uu ka yimid aragtiyo kale inta oo dhahayo Naciimo commentiyadii xagga lagu soo diri jiray muxuu ahay waa ka faa'iidi jirnay oo waa la kala faa'iidi jiray dii qof walba gaar ahaaneed qaaskiisa ay talooyinkiisa ku siisid sidee muxuu ahay muuqaaladii aan ka faa'iidi jirnay oo commentiga ka soo jawaabaysay hal qof uga soo jawaabaysa laakiin boqolaal qof oo anfici jiray taasna Naciimo maxaa u fiirin weysay walaal kale aragtidaas iyo fikirkaasna uu ka yimid marka maxaan ku jawaabay aniga Naciimo ah nicraajada meeshaan dheelooso ma sha Allah hadii waxaan dhahay su'aalaha aan u arko in ay warsanayo mid mujtamaci uu u baahan yahay oo laga maarmaan ah anoon qof midiisa aan qaadanaynin markay bataan oo xoogaan noqdaan taasoo kale inaan isku soo qaato oon hal ciwaan aan ka soo dhigo oon muuqaal ka soo duubo suurtagal waa maxay yeelay 7 qofood 8 qofood 9 qofood aan isgaranaynin oo kala meel joog markay kaaga imaato hal su'aal oo wadana isku mid ah waxa muhiim ah oo hadana waajib ah inaan ka soo hadlo oo muuqaal aan ka soo duubo si 8daas ma aanay 8 kale arintaas la daalan dhacay ay uga faa'iideystaan taasa marka keentay midaan inaan muuqaal aan ka sameeyo walaalihii arimahan ila wadaagay waa uga jawaabay si qaas ahaaneed mana soo qaadanayo qof gaar ahaaneed arimihiisa inaan inta keeno laakiin waan isku dhex darayo halan ka soo saaray say u noqonin mid qof gaar ahaaneed u leeyahay ilaan ma ahan hadafkayga iyo ku talagalkayga qof walaal arimihiisa oo sidoodii oo garoorin oo suusicina la yiraahaa yani inaan social media aan soo dhigo iyadoo la igula wadaagin midii la ila wadaaga iyadoo basiif ahaan oo aan active ahayn oo ummadina aan uga faa'iideynayo qofkii walaal ahaa tiisina ay sandahaad ay tahay sandahaad yani ay qarsoonta faa'iideedan wadato waxaan dhahay marka waa maxay dhibaatada keento waan isweydi dadkan oo weydiinooya qof walba ka soo jawaabo wixii aragtidaada ah wixii fikirkaada ah wixii aqoontaada ah muxuu ahay ka qayb qaado ka soo jawaab walaalaha commentiida soo bixinayaan waxaan ka codsanaa insha Allah haddii comment aad soo bixisid oo tiraahid waxaan saas ma aha wixii lagu bedeli lahaa dad ogsoon tahay nala wadaag ilaan maskaxda wixii aad ka tirtid oo tiraahid waxaan saas ma ahan waa in la soo bedela booskeedii la keenaa in badan commenti waxaan akhriyaa dhahay saas ma aha oo saas lama yeel oo saan ma ah wixii lagu bedeli lahaa insha Allah noo keen sababtoo waxaan lama yeelo qofkii ku yiri wixii loo yeeli lahaa wixii uu kugu bedelay waa haysa hadii waxaan lama yeelo kaliya hore lagu soo dhahay oo wixii lagu bedeli lahaa lagu sheegin wax socdo ma ahan taas iska reeb waa marka muxuu ahaa ma fiicno maalintii dheedo kale waxaan ka hadlay talaalka kale muxuu ahaa inuu uu muhiim yahay oo talaalki aanan si xad gudub uu talaalka ku imaanaynin ala keefkaada waa adiga ama rabo ama rabooni ilmaha cadaanka lama talaalo iyo ilmaha aniga aan dhalay cadaan waa waxaas xoga aan maqlay meesha aan joogo cadaana wadankan iska leh meesha aan wax ku bartay oo wax ku durooyo wax ku aan laftirkay ku talaalooy meesha waa muxuu ahay cadaan iyo madow oo la kala talaalayn waligay indha masaarin marka asbaabta marka soo dhigtid saas qofka lama yeelo marka tiraay sababta aan loo yeelin noo soo daba dhigsaa uga jaahil baxna anaga laftirkeena waa u baahanahay insha Allah
maxaa keena what's the problem inay ilmihii iyo aabooda isfahmi waayaan problemka aan isleeyahay aniga ugu weyn waxay tahay kala aragti kala fikir kala duwan in ilmihii iyo waalidkii aabihii ay isku arki la'yihiin maxaa yeelay laga yaabo backgroundgii aabaha markuu uu soo koraayo kaleento inuu muxuu ahay uu kusoo koray aaba aan jawaabaynin ee awoogii ilmaha awoogii aabahaan dhalay ama ayeeyadii dhashay ama biicadii ama degaankii ama ciddii markaas soo korisay lacalla inuu ahaa qof muxuu ahaa aan hadli karin oon afcelin karin oo aragtidiisa fikirkiisa dhiiban karin maxaa yeelay isfaham waa haddaa aragtid waa aragti kala duwan waaye iyo fikir kala duwan oo meesha iskugu imaaday oo rabaan in la iswaafajiyo haddii ay iswaafaqaynin marka ay isku imaan la'yihiin macnaha aabaha laga yaabaa markuu yaraa uu intaan la ekaa sidoo asaga ahaan jirin inuu ilmihiisa ku arkay oo aniga ma afcelin jirin aniga baariya aha aniga waa aamusnaan jirin aniga aabaha intaa ma gaari jirin waay adiga intaa igu soo gaaraysaa ko taasoo kale way keeni kartaa problemkii markii la rabo in la helo hadal celis uu keeni karaa oo in ilmihii maanta dhan uu soo hadal celinayo xilliga oo teenage-ka oo kaleento uu ilmaha soo qangaarayo waxay ku afbartaan waalidkooda wayna ku qasban yihiin inay afbartaan aniga ahaan Naciimo waxaan aaminsanahay ilmaha caasinimo kama aha ilmaha xumaanka ma aha ilmaha ka hor imaasho oo waalidka ma aha laakiin waa xilli marxalad ay kasoo gudbaayeen marxalad kale usoo gudbaayeen qofka weyn ee waalidka asigaa la rabaa inuu fahmo aysan ahaanin aniga markaa adig kula ekaa waalidkayga kuma afcelin jirin waxaa laga yaabaa inaad rabtid inaad hadashid laakiin awood iyo biicada iyo deegaanka aad ku koraysid markaas aan laga aqoonin in aad hadashid oo la dhihi jiray waalidka gartiisa gardaradiisa gar adoo u jeedin qalad ama wax dhacayo qalad meeqa waalida waa qaldan oo muxuu ahaay dariska ku xadgudbo dadka kale ku xadgudbo laga yaabo walaalihii la dhashay ku xadgudbaayo ee ilmihii ay arkaayiin oy teenage yihiin oy fahansan yihiin oo ay hadli karin ilmaha laga yaabaa laba walaaloo isla dhashay inay isku xadgudbaayiin ilmihii in abtigood loo adeegsanayo kale oo la dhahay abtigaa waa kaas abtigaa waa kan ayada hooyada markaas isku difaacayso muxuu ahaay waa la idhibooya ama waa idhibaatooyin ama walaalkaya igu karan anigana hadhow wiilasheedii iyo ilmahaygan u adeegsanaa oo ilmihii markaas si qaldan xataa haweenadood haday qaldan tahay ama aabahood uu qaldan yahay ay ku qasban yihiin ama qasab looga dhigaa inay garab u ahaadaan waalidkii dhal iyagoo qaldan oo markaas walaalihii kale loo adeegsado laakiin marxaladda hadda la joogay ilmaha smartiga ee wax fahmaya koraayo hadalay ka ceshanayeen oo waxay dhahayiin hooyo waxaan waa ku qaldanta aab waxaan waa ku qaldanta hadhow marka waalidkii shock ay ku qaadayeen waxay u arkayiin wuxuu igu soo afcelinaa cunugan aragtidiisuu dhiibanooya cunugan fikirkiisuu dhiibanooya cunugan birita mustaqbalkiisa wixii wanaajin lahaa yuu u jeedaa ma ahan inuu kugu raacayo adiga taas afceliska iyadana way keentaa oo ilmihii aanan haddii aan loo ogolaanaynin inay hadlaan oo kaleento oo loo kambaarsameynaayo aniga markaa aan intaa adiga aan kula ekaa waalidkayga kuma soo afcelin jirin waalidkayga wax kastay sameeyaan anoo arkaayo kama hadli jirin kama waxiisman jirin taasoo kaleento qaladaadka what is the problemka weli aan ag joognaa waxaa kaloo keeni karo problemkaas inuu maanta dhan jiro in lagu dhaho war maqli waay ilmaha war ma maqlaayo markii la yidhaaho waxaa la rabaa miisaan in la saaro war maqli waayo maxaa dhalay inuu cunugan wakaa maqli waayo inuu muxuu ahaay wax kasta waxaan sameynaa suu ay dhahaan qada finish yani wax kasta oo sabab ahoo dhaco ilmahaan dusha ka saarnaa marmarka qaarkeed waxaa la rabaa adiga waalida inaad iskeentid meeshaan oo aad tiraahid waxaan ilmahaan muxuu ahaay warceliskaan ilmahaan iyo afceliskaan iyo facaysigaan iyo waxaan cunugan uu sameynayo inta in la eg aan laftirkayga aan ka qayb qaadanooya problemka marka waxaa waaye erimiyali kala fikir in la yahay kala aragti midda labaad hadal celis inuu noqon karo war maqli waayo saddexdaasaa problemada badankood oo liila wadaagay ka mid markaan intaas problemka ogaanay maxaan dhahaynaa marka maxaa keena in muxuu ahaay ilmihii intaan oo problem ay ku dhex jiraan oo waalidkoodii ay isku fahmi waayeen khaasatan aabi maxaa keena waxba maxaa keena marka aad dul istaagtid subxaan allah waxaa aad helaysaa muxuu ahaay xal mid aan bilaaweyga ku sheego kaleento qofkii markuu dhaqtarka yimaado wuxuu dhahaa
waxanuusana xagee laga haya what's the problem maxaa kuu dhacay muxuu ahay markuu sheego ee la yiraaho uu yiraa caloosha laga haya caloosha tawti waa Cyrus xanuun waa xanuunkan ku haayo muxuu ahay waxa la weydiinaa marka oyre oo ah maxaa keenay yani maxaa isku aragtaa marka waxaan caloosha markay ku xanuunayso wixii oo dhan laga qoraa caloosha waa ibaxdaa waa la iga majiiriyaa xilligaas ay qabataa waxaas markaa cunaa iga arag kulli backgroundigi keenay calooshaan inay xanuunto ooyadiisa waa in la ogaadaa ooyre marka maxaa keena wa kadib waxaa lagu fikiraa haddana maxaa muxuu ahay ehkayso waa maxaa uga hortagnaa waxaan horta inay imaanin maxaa uga hortagnaa ka hortagid kadib haddana waxaa ku siigo hoyta keeno oo ah habkii lagu daryeeli lahaa waxaan daryeel aan soo noqod lahayn maha inaan daryeelno oo wixii ay joogto noqdaan maha inaan daryeelno ay soo noqdaan badanaa Soomaalida aad uga cawaadaan oo aniga aan ka dhashay waxay haayaa gastric qofku haynin wuxuu dhahaa way haayaa qofku haayan wuxuu yiraahdaa way haayaa kadib waxaa la dhahaa suugada iyo nyaanyada iyo tamaandhada iyo dhanaankaas waxa dhana idhibaayo gastriga ay haayaa tiri halwuu soo diagnosis halwuu soo sameeyo misiyaan adba saacado isku sameeyo ilaa qaar dad ayaga isku sameeyaa jir dad aaminsanaa jir in dhabarka laga haayo dad aaminsanaa jir in kilyaha laga haayo dad aaminsanaa jir in yani meelaha jaq ku leeyso qalaas kilyaha laga haaya dhabarka laga haaya ada dad ayaga diagnosis isku sameeyaa jir dadna dhaqtar ku soo sameeyo diagnosis moqt maxaa ahaa kadib marka dhibaatada jirta waxay tahay gaasa qabtaa ama lagu soo sameeyo diagnosis misaad isku sameeyo waxaad cunaysaa wixii lagu yiri waxaan iska dhaaf marka waxaan aad cuntid yu ku imaada maxaa keena gaas inuu ku haayo waxaan cuntada bariidada talaajada in badan ku raagtay yaad cuntaa waxa soo dhana ku dhibaayo cunta dhanaanka ku dhibayso tamaandhada ku dhibayso shishidka ku dhibaa wixii ku dhibaya lagu sheeg waad soo cunaysaa waxa dhaysaa gaasa ihaayo marka anaga marabna hadda marka barnaamijkan waxa uga hadlayo aan dhahayo hal share garay oo madax gaaro waxa dhahayo xitaa wixii aan ka hadalno subhanallah waxa rabnaa ficil ahaan inaan falgelino oo wixii wax shaqeeyo ay noqdaan ma ahan kaliya in la isku imaado laga hadlo lagu kala tago qof walba oo u raba ilmihiisa badbaado talooyinka la siinaa inuu raaco muhiim ah maxaa yeelay wixii aan ku soo kornay iyo wixii aan ahaan jirnay iyo wuxuu awooga ahaan jiray maanta waxba kaama gelin historygaas isaga ahay oo la soo dhaafataa ku noosha awoogay nin af lagu celiyo ma ahayn aabahay nin kor loo fiiriyo ma ahayn waxaas oo dhan hadda aaminsanta marxaladan la joogay qarnigan la joogay iyo xadaaradan lagu nool yahay aragtid ina ilmo ku korsatid haddana aad soo saartid ilmo umada anfacdo meeshaasna aad joogtid oo ku noosha wax adag ay noqonaysaa marka aan isu soo dhaweyn harna marka anagoo ilmihiina korsanayno xadaaradii iyo dhaqankii iyo wixii aan ku soo kornayno ilaashanayno xagee meel dhaxo oo arinta iskugu keeni karnaa ilmaha maanta koraayo wuxuu aaminsan yahay inaan la qaldi karin wuxuu aaminsan yahay inuu fikirkiisa sax yahay wuxuu aaminsan yahay markay soo qaangaarayiin muugu sii jirto adi marka waa ka weyntahay maxaa loo baahan yahay waxaan oo dhan what's the problem inaad kor joogsatid barbadanki ogaatay kala aragtida kala fikir duwanaanshaha xiliyada oo shilka oo dhaco kaleento shilka goormo dhaca markii aragti kala duwan ay imaato cunugii aragti kale uu aaminsan yahay iyo waxaan iyo qaangaarkan iyo waxaan soo galay oo dhan uu arkaayo qof dunida ku soo kordhay wax soo kordhin rabo uu yahay marka adigana aaminsan tahay meesha cunugan uu ku socdo wax kale ay tahay waxaan ka joog markaan dhaanana booski ka joog aan dhaana boos kale aan ku bedelna aan u haynin empty baabuur faaruq si garaacayna ma jiro faaruq soo garaacayna ma jiro baabuurka markuu rakaabka qaadanayo waa inuu u buuxa oo sii socdo marka cunuga maskaxdiisa rakaab safar ah oo buuxo oo adi aad saartayna ma saarno wixii u saarnaayo asaga rabo inuu ku safrana Georgia tir meelahaas oo kale aragtida fikirkaas kala duwan uu ka imaanaa muxuu ahaa isku dhac waxa kale ka imaanaa muxuu ahaa amarada farada badan oo aan bixinayno oo ah ana iri barabadalki marka dul istaagtid maxaa keena dul istaagaysa marka maxaa keena waxa waaye dhageysi la'aan
ما دقيسنا المهن المي حباين إسدقيس إلا دقيستو ها حلو الماء كانوا غير إلا كانوا وين وهكسو هطلع إن بدو كسوع العليا برنامج كان مركي وحملنا ناخذ نقنا وكسو هدلو يا مرة أصلا نوع كلا أنت لو يقول معنا سؤال نوع كلا يقول معنا سا إسل عدنا وكسو هطلع عدنا وكسو هطلع ومهم الماء وأبحني الماء سواء قرأي والماء مستقبلك والمي وطنك والمي معاه هرمرك taas way waxaan marka xoog aan u saaray oo ilmo markii la soo qaado ay u noqonayso muxuu ahaayeen mawduucaas mid aan rabo inaan dul fadhiyo oo saacada taadi aan hadlaayo anu arkaynin inaan saacad hadle dhageysi loo baahan yahay dhageysi maxaa keena dhageysi la'aanta way keentaa in ay isku dhacaan ilmaha iyo abood iyo ilmaha iyo hooyadood ilmaha iyo waalidka ixtiraam la'aan ilmaha ixtiraam aad weyn u baahan yihiin lagu ixtiraamo wax walba iyo nooc walba ayaga ay yihiin ee rabbi uu kugu sii adiga iskama kaysan ilmaha waa lagu sii nooci ay yihiin ina insha Allah ku ixtiraamti ixtiraam la'aantaas way keentaa isku dhaca ilmaha iyo aabahood aabihi codow ilaahay sii codkii doobada ahaa weyna waxa la rabaa inuu banaanku isticmaalo badana aabiyaashana markii wadanka aan joogno aan la soo korayin muxuu ahaayeen waa ogaan jirno waa arki jirno indhahan saari jirnay aabayaal uu isticmaalayo doobada ilaahay uu siiyo kaleento ilmahooda uu isticmaalayo doobada ilaahay uu ku siiyo waxa loo baahan yahay banaanka inaad u isticmaashid oo banaanka marka aad dantaadii iyo asxaabtaadii iyo dadkaas doobadaada aad kusoo bixisid dooba waa codka uu leeyahay guriga markuu yimaado aaba codka inuu yareeyaa la rabaa laakiin markuu waqtigiisii iyo inta badan waxaa lala qaadanaa aabihii waqti badan oo naga maqnaada markuu guriga yimaado oo buuq iyo qaylo nagu fura subhanallah waa cagsi sidii la rabay ee cagsi noqoto umada yani wanaag hadii lagu la dhaqmo oo banaanka qabow kusoo dhaqantid gurigana muxuu ahaay qabow noqona noloshii si kale aragay ku soconaysa laakiin hadii control ay laheen oo energy-gaadi iyo awoodaadi iyo tamartaadi iyo farxadaadi banaanka aad kusoo bixisid guriga marka imaatid waa empty aad tahay ilmaha meelaysid jaanis iyo waqti waxay noqonaysaa si ay kaaga dhuuntaan inaad qaylisid taasna waxay keentaa dhibaato aad u weyn insha Allah in ilmihii waqti la siiyo ixtiraam la siiyo dhageysi la dhageysto muxuu ahaayeen waxa kale inta isku dhac keen in waalidka aaminsan yahay kaligay saxane ana saxan ilmaha waxay sheegaan oo dhan waa qalad ilmaha waxay sheegaan waalidka qaarna way saxan yihiin qaarna way qaldan yihiin waalidka naftiisa qaarna ku qaldan qaarna ku saxan aniga naciime waalida qaar waxa laga badan inaan ku qaldana oo ilmahayga ay iga raboonayeen inay iga yeelayeen waa inaan ka dhaliyaa marka ay raahoy waxa aan ku qaldanahay hada afka ii sheegayn xataa waa ilmaha waa la baraa inuu cunugaada ku hadli karo ku dhigi karo hooy waxaan waa ku qaldan tahay ku fiican ma adduunyo aakhir haduu laakiin ku dhihi karin ee wax walba ka xirtay ma yaqaan meeqo ka xirtay oo quful ka saartay ma hadli kartid ana waalid ana hadli kar kaligay saxan hadeeta maanta isku dhacaysin ilmihi oo hadhow boolus tuskiisiyaad xataa dhulka la galaysaa oo markay weynaadaan kadib buug madow oo lagu soo xasuustay noqonaysaa oo ilmihi adi aad dhashay laga yaabay adoo god ku jirtid xataa oo geeriyootay inay adduunka korkiisa ay kaaga ooyaan oo ay ku ooyaan waalidkayga saas u ahaa waalidkayga saas u ahaa waalidkayga saas u ahaa oo ay noo ahaadaan adduunyada dogsi aakhirna subhanallah markay geerida noo imaanayso kuwa aanan ka murugoonaynin markay noo imaanayso sida nabiyullaahi yacquub ugu dardaarmay calayhi salaam ilmihiisa oo yiri ما تعبدون من بعدي حتى عبدي دونتان أنا قد شيء قالوا معنا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون الممركي أنا قاعد إنه إيمان يسوع حنو بعنا هون إلهي كبرينا أنا هو الولا إنه مروك إنهين أنك جيريونين ما هن أبا نول جيرد هذا كذب علمي إن أسي مروجوتي عافمات قبتيدو سعتيدو هذا حلقاس يعني جيري في لنينين مركز تيمانيسا لا هي قرنا يقولتي جيري مانيسا لكن إلى الولول إسكسي أبورنا عندنا محو هاي إن جيري ده كذب المهم محنا قندونا وولول ugu badan oo muxuu ahaay nahaysto marka ma rabno waxaan u baahanahay inta aan noolnahay ee waqtiga Ilaahay u nasiyay ee aan la qaadanayno waqti in kuwa adduunkana aan ku doogsano aakhirana midaan aan sheego ugu muhiimsano nabiyullaahi yacquub idxadara mawt goortay geeridu ku soo xaadir
إذ حضر يعقوب الموت قال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك mid ugu muhiimsan successfulka waa midaas oo waalidka oo dhigi karo adduunya aakhiraba waan guuleystay waxaan ku guuleystay hadiyada ilaahay uu ii dhiibay sidii ayaadina uga baxay oo maalinta qiyaam markaan tagana ay su'aal iiga imaanaynin xaggee geysay hadiyadii aan ku dhiibay marka wuu sii soconaa muuqaalkan wuu dheeraaday intaan kusoo gabagabayn doonaa marka wuxuu noqonaa part 1 wuxuu yeelanaa part 2 insha allah haddii part 3 uu yeesho waa kaas haddii laakiin part 2 aan kusoo gabagabayn laana in badan waxaan rabaa inaan si fiican oo ballaaran aan uga hadlo intuu ilaahay iga waafajiyo inta ka horeysa waxaan idin leeyahay muuqaalka labaad sugo oo muxuu ahaay hadhiin kan kaliyaan daawanaa sababtoo waxaa laga yaabaa halkaasna inay faa'iidooyin aad u fara badan oo ku anfici lahaa ay ku jiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu